al-shabaab ayaa weeraray deegaan ku dhow magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose iyadoo dhinaca kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu amray dagaal ka dhan ah ururkaas kadib markii shalay dagaal uu ka dhacay deegaan ku dhow magaalada baydhabo ee gobolka baay xalayna dagaal kale uu ka dhacay deegaan kale oo ku dhow magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose. maxamed cabdiqaadir maxamed ayaa warkan inoo haya. xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inay weerar ku qaadeen deegaanka la yidhaahdo ceel jaalle oo ku yaala duleedka magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose, waxaana halkaas ka dhacay dagaal xoogan oo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan ururka al-shabaab. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegay in dagaalka uu si gaar uga dhacay xaafadda lagu magacaabo Naftaaqur oo kamid ah xaafadaha deegaanka ceel jaalle, halkaas oo ku sugan yahay taliyaha 7 tuulo Cabdullaahi Macu iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada guutada 14 Oktoobar oo gacanta ku haya magaalada marka ayaa sheegay in ciidamada iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab, isla markaana ay ka dileen hal xubin, kuwa kalena ay ka dhaawaceen, kuwaas oo ay kusoo bandhigeen deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada marka. waxa uu kaloo taliyaha sheegay inay markasta diyaar u yihiin inay ka hortagaan weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca al-shabaab, sidoo kalena ay fulin doonaan howlgallo kala duwan oo ay al-shabaab kaga saarayaan deegaanada u dhow magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose. wararkii ugu dambeeyay aasaaka ee kana helina deegaanka ceel jaalle ee duleedka marka ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid caadi ah, hayeeshee ciidamada militariga Soomaaliya ee wadaan howlgallo kala duwan oo ay ku baadigoobayaan xubnihii ka tirsanaa ururka al-shabaab ee deegaankaasi weerar kusoo qaaday. dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa uu ka hadlay dagaaladii u dambeeyay ee 24 saac ee lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay, waxa uuna u tacsiyay ehelada iyo qaraabada dadkii ama saraakiishii ciidamadii ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay oo u dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay. madaxweyne Laftagareen waxa uu sheegay unaga baaqay shacabka iyo waliba ciidamada kala duwan ee maamulka in ay wada shaqeeyaan, waxa uuna ku amray ciidamada iyo saraakiisha ciidamada maamulka koonfur galbeed inay fuliyaan howlgal ka dhan ah ururka al-shabaab, isagoo sheegay in shacabka looga baahan dhankooda inay garab istaagaan ciidamada. ugu dambeyn waxa uu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed sheegay in sugidda nabadgelyada ay mas-uuliyad ka saaran tahay ciidamada iyo hay-adaha amniga, shacabkuna looga baahan yahay dhankooda in ay gacan weyn ka geystaan. 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay iyo deegaanka ceel jaalle u dhow magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waxaa kala dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab. koox burcadana wadanka koonfur afrika waxa ay ku dileen ganacsade Soomaaliyeed oo ku noolaa wadankaasi. Axmed Tifo ayaa faahfaahinaya. allah u naxariistay waxaa dhaawac xoogan uu soo gaaray xalay goor dambe u geeriyooday Faarax Weyd oo kamid ahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ganacsiga u jooga wadankaasi koonfur afrika. dhacdada waxa ay ka dhacday magaalada Durban ee wadanka koonfur afrika, waxaana geystay koox burcad South African ah, iyadoo markii dambe goobta ay dhibaatadu ka geysteen ay ka baxsadeen. dhalinyarada ku nool magaalada Durban ee wadanka koonfur afrika ee falkan uu ka dhacay ayaa xaqiijiyay qaarkood in gurmad ay u sameeyeen muwaadinka Soomaaliyeed ee kooxda burcadka ah weerarka ay kusoo qaadeen. ujeedkeeduna waxa uu ahaa in goobta ganacsi ay ka dhacaan Faarax Weyd, isla markaana ay ka badbaadiyeen walow kooxda burcadda ahayd ee muwaadinka Soomaaliyeed ay dileen. ciidamo ka tirsan booliiska wadanka koonfur afrika ayaa tagay halka ay dhacdadu ka dhacday, kuwaas oo baadi goob u galay markii dilka uu dhacay, iyagoo halkaasi ka sameeyay howlgal kooban oo aan macno badan ku fadhin. koonfur afrika waxaa sanadahan lasoo dhaafayba ka dhacayay dila loo geysanayo dadka ajaanibta ah ee wadankaasi ku nool, haba ugu badnaadaanay kuwa Soomaalida ah, waxaana ilaa hadda jirin cid isku hawshay inay ganacsatada Soomaaliyeed halkaasi ay ka badbaadiyaan. Faarax Weyd allah u naxariistay waxa uu kamid ahaa ganacsatada goobaha ganacsi ee waaweyn ku leh magaalada Durban ee wadankaasi koonfur afrika, waxaana xusid mudan in wadanka koonfur afrika uu kamid yahay wadamada ugu badan wadanka ugu badan qaaradda Afrika ee uu saameynta xoogan ku yeeshay cudurka coronavirus.
waxaa lasoo sheegayaa in ciidamada amniga ee magaaladaasi ay durbaba xireen goobta ay falka uu ka dhacay iyagoo oo waqti badan ku qaatay sidii ay ku baari lahaayeen halkan. waxay u sheegeen dadka Soomaaliyeed ee aagga ku sugnaa in ay dhacdadan baari doonaan cid kasta oo ka dambaysaana sharciga lasoo hortaagayo. inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkaasi booliisku kula hadlay aysan ku qancin hadalka maadaama dhowr jeer hore saraakiisha amniga sidaan oo kale ay dhaheen ha yeeshee aanan ficil ka dhalan. taliska booliiska gobolka barina waxa ay digniin u direen ciidamada la sheegay inay ku lug leeyihiin colaad beeleed ka taagan deegaan ku dhow magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Cali Xasan Cali ayaa faahfaahinaya. taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa deegaanka Cawsane oo ka tirsan gobolka Sanaag kaga qayb galay soo afjaridda colaadii ka taagneed deegaankaasi taasoo u dhaxeysay laba maleeshiyo beeleed. qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sanaag, odayaasha dhaqanka labada maleeshiyo beeleed iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa madasha lagu heshiisiinayay labada beelood. taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay nabadeynta labada beelood sida odayaasha dhaqanka, madaxweynaha Puntland, qaybaha bulshada deegaanka Cawsane iyo ciidamada Puntland, isaga oo labada beelood ugu baaqay inay nabad ku wada noolaadaan. sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dhowaan la geeyay deegaanka Cawsane looga baahan yahay inay sameeyaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab iyo Daacish oo ku sugan dhulka beeraleyda ah ee gobolka Sanaag, iyaguna ay ballan qaadayaan inay ku taageerayaan. taliyaha ayaa waxa uu ciidamada uga digay inay ku lug yeeshaan colaad beeleed maadaama uu tilmaamay in looga baahan yahay in iyagu ay nabadeynta deegaankaasi ka qayb qaataan. ciidamadan laga sheekeeyay oo ay sheegeen oo xildhibaankii halkan ka tegay uu sheegay looma samayn inay beeraha kale ka celiyaan. cadawga buuraha ku jira Shaacish iyo Shabaab baa loo sameeyay inay dalka ka saaraan ummadana ka difaacaan. meeshaan waxay ahayd meeshii nabadda, meel dhib ka jiro ma ahayn, laakiin shaydaanku dadka waa duufsadaa. nabad in badan baan halkan fadhinaa la yiri intaan uga soo kacnay in badanna gudoomiyaha gobolka sheegay maalintaas aan ka wada hadlayno waa fadhiyay. waxaan leeyahay annaga waxaan u igmanahay haddaan ciidan nahay inaan nabadda ka shaqeyno. uma agman inaan iska joogno iyo inaan xafiis fariisano, laakiin waxaa noo igman guri kasta iyo magaalo kasta iyo jid walba inaan dadka shacabka iyaga ka difaacno dhibaatada, inaan iyaga kala dhex dhigno. deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo soo laabtay kuwaas oo u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed, waxaana dhowr jeer fashilmay kulamo la doonayay in xal loo gaaro dagaal beeleedyada. aad u mahadsan yahay. halka aan kugu sheegay in deegaanka Cawsane uu ka tirsan yahay Bari, waana wuxuu ka tirsan yahay gobolka Sanaag. warkaas wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. madax ka tirsan maamulkii dekedda caasimada Beirut ee wadanka Lebnaan ayaa loo xiray sababo la xiriira walxihii baqaarka ku keedsanaa ee sababay qaraxii weynaa ee shalay ka dhacay magaalada Beirut ee caasimada wadanka Lebnaan. mas-uuliyiin ka shaqeynaya dekedda Beirut ee uu ka dhacay qaraxa dadka badan ay ku dhinteen ayaa la geliyay xabsi guri xilli uu socdo baaritaan ku aadan sida ay wax uga dhaceen halkaasi. qaraxa ayaa la sheegayaa in dadka ku dhintay ay hadda sii marayso tiradooda 137 qofood, waxaana ku dhowaad 4,000 oo kale la sheegayaa in ay ku dhaawacmeen, iyada oo dowladda wadankaasina xaalad degdeg ah ay kusoo rogtay guud ahaan wadanka. madaxweyne Michel Aoun ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay 2,700 oo tan oo ah maadada fududeysa faafitaanka walxaha qarxa si ammaan ahayna loogu keydiyey maqaasiin ku yaala dekedda muddo 6 sano ahna uu ku jiray. madaxa kastamada canshuuraha ee dekedda ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta xabsi guriga laga dhigay. maadada la sheegay in ay qaraxda ayaa loo adeegsadaa bacriminta beeraha iyo weliba sameynta walxaha qarxa. ubra ka tirsan
jaamacadda Sheffield ee waddanka UK ayaa sheegay in qaraxaasi uu lahaa awood u dhiganta 10% weerarkii ama bambadii atomikada ahayd ee lagu riday magaalada Hiroshima dagaalkii labaad ee dunida. waxaana ay sheegeen khubarada in qaraxaasi uu ka mid yahay kuwa aan nuclear-ka ahayn ee ugu weynaa dunida inta taariikhda la ogyahay.